haddaan dhaw wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaanu ka shaqaynaa horumarinta deegaanka haddii aan deegaan badqaba jirin suuragal maaha in la helo xoolo caafimaad qaba wasaaradda waxaanu dejinnay siyaasado iyo xeerar dhammaantood qayb weyn ka qaadanaya badqabka deegaanka beeraha iyo biyaha oo si gaarana u badhitaaray dadaalada ay waddo wasaaraddan maanta halka u fadhinaayo xanaanada xoolaha waxa ugu muhiimsan oo aan ka xusi karnaa siyaasadda maaraynta deegaanka oo ilaa 7 wasaaradood aan ka wada shaqeyno waxa xusin mudan oo iyaduna halkan jecel inaan ka xuso wasaarad ahaan shaqooyinka ugu muhiimsan aan hayno waxa ka mid ah ilaalinta seerayaasha haddaan seerayaal la helin xooluhu meel ay noo daaqaan la heli maayo waxaa jira mashaariic badan oo runtii aan si gaar ugu mahadnaqayo agaasima maax oo wasaaradaha xoolaha beeraha biyaha iyo deegaanku way ka wada shaqeeyaan oo mashaariic isku dhafan oo adduunyadu maanta ay nagala shaqeynayso sidaynu u horumarin barnaamijyada Brazilian programs maadaama isbeddelka cimiladu uu saameyn weyn ku yeeshay nolosheennii hadday tahay deegaankii hadday tahay biyihii oo taasuna way si toos ah u saameynayso xoolaheennii waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan ka xuso dowladdeena Soomaaliland sanad walba waxay miisaaniyad ballaaran iyo caqli iyo cududba ku bixisaa sidii loo horumarin lahaa xoolaha Soomaaliland iyo seerayaasha deegaanka waxaa muhiim ah inaynu garno dadaalka aynu dowlad ahaan gelinayno waayo marka taa aynu meel fiican ku tiirino oo aynu dadaaladayna isu geyno ayaa adduunyaduna waxayna la qabanaysaa waxaan jecelahay halkan ugu dambeyn inaan dhiirigeliyo oo aan aad iyo aad halkan aan jecelahay inaan ku baraarujiyo wasaaradda in la dhiso aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha iyo dhakhaatiirta xoolaha si markaa kor loogu qaado caafimaadka xoolaheena iyo dhaqaalaha waxaan ugu dambeyn aan kusoo gabagabaynaya maanta halkan ragga fadhiya 90% rag iyo dumarba dhalinyar bay u badan yihiin ragga Axmed Xaashiye ka mid yihiin Ibraahim Wali waa yar yaa faleeyahay intay soo shaqeynayeen waa shaqeeyeen Soomaalidu waxay tahay ragga waa ku marka maanta ragga hawshu haysata waa dhalinyar halka fadhida dadaal badan baa loo baahan yahay waxaan jecelahay inay kor u qaadaan qoladiina wasaaradaha isku xidhka xirfadayaasha habka xoolaha khuseeya ama ha noqoto qoladii digaaga ama ha noqoto geeli ama xoolihii haddii aan la helin awood isku xidhan wax fara badan inooma qabsoomayaan ugu dambeyn waxaan jecelahay halka uga mahadnaqo wasaaradda xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo aan qirayo runtii sanadihii ugu dambeeyeyna horumar weyn samaysay